wadada hormarta xerada gaadiidka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmada Cabdicasiis oo in muddo u xirneed sababo amni ayaa waxaa maanta dib u furay maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo bulshada ee wadadaasi maadaama wadadani ay ka mid tahay wadooyinka ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho. waaxda gaadiidka dawladda hoose xamar ayaa gabi ahaanba burburisay difaacyadii iyo dhagaxyadii wadadaasi ku xirnaa waxaana howlgalkan wadadani lagu furayay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso iyo saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taliyaha hoggaanka howlaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Axmed Dayib Axmed ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ciidanka booliiska ay diyaar u yihiin furista wadooyinka xiran in loo fududeeyo ummadda Soomaaliyeed ee shacabka si yacnaha ay ugu fududaato howlahooda waxaan diyaar u nahay inaan mataqaana duqa magaalada iyo mas'uuliyiinta ka shaqeynaysa garab ku siino wax kasta oo xarun booliis ah oo ay u baahato bulshada in loogu adeegana gudoomiye diyaar baan u nahay Abdullaahi yiraahdo wax la wixii mataqaana ay sheeg sidoo kale inta waxaan goobjoog ka ahaa amar uu ka bixiyay taliyaha ciidanka booliiska in la furo jidka CID hormar oo runtii asagana aan dhihi karno waa wax lagu faani karo waxa keenayna hadda kulli waa garan karnaa laakiin baahida bulshada ayaa wax kasta ka weyn. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay furista wadooyinka xiran isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan dib u dhiska wadooyinka. tan waa bilow waxaan ku soconaa waxay tahay dhammaan wadooyinka inay yihiin wax shacabku leeyahay sidaas daraadeedna aan doonayno inaan dhammaantood inta xirxiranba aan furno intii amni looga maarmi waayo moogiye sidaas daraadeed shacabkan waxaan leenahay wadooyinkii iyo waxay nooga wada baahan yihiin dhammaanteen inaan ka wada qayb qaadanno dhismahooda si bulshada ay horumar u gaarto dhan walba ah marka mar kale booliiska waxaan uga mahad celinaynaa muxuu ahaa sida ay nooga aqbaleen codsigeennii una soo dedejiyeen sidoo kale dhammaan hay-adaha kale iyo ganacsatada oon ognahay marshibiyadii shacabka iska lahaa iyo wadooyinkiiba qaybo ka mid a xirxiray in ayagana ugu baaqayno inay si degdeg ah dhulka danta guud inaan la xiri karin ay u ogolaadaan in la furo si shacabku ay uga faa'iideystaan marka aad u mahadsantihiin. daqiiqada ka hor halkan waxay ahayd waddo xiran oo aan la mari karin hase ahaatee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in wadadan dib loo furo waxaana uu maamulka gobolka Banaadir sheegay in la qorsheynayo wadooyin hor leh oo la furi doono kuwaas oo qayb ka qaadan doona isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Haliil raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed wadada xerada gaadiidka ciidanka booliiska Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.